بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan aan ka soo gudbiyo aniga iyo naftayda iyo inta kale ila midka ah aan tacsi ka soo gudbiyo aan u tacsiyeynayno akhwana al-fadil الشيخ محمد عبد أمل wiil yar oo dhalo intii muddaaba xanuunsanaa maanta gelinka hore ku geeriyooday magaalada Hyderabad ee waddanka India oo daawiye caafimaad iyo isbitaal loo geeyey wiilkaasoo intii muddaaba xanuunsanaa sheekhuna uu sii qaaday hadda muddo ku dhowaad 2 usbuuc laga joogo. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala sheekha sabir iyo iimaan inuu ka siiyo iyo ahalkiisa iyo dadkiisa oo dhanba bedel ka khayr badan aakhiri adduunmana ka nacfi badan ugu bedelo isagana uga dhigo hordhac jannadii ugu horreeya labadiisii waalidii uga dhigo ilmaha yar ee muslimka ee sidaa u dhinta nabigeena waxaa ka sugan sala allahu alayh wasalam inuu ka mid noqonayo waxyaabaha waalidkood u shafeeca. ilaahi subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa kii waalidka u shafeeca inuu ka dhigo iyagana horudhacayo hormuud u noqda ugana mid dhiga sababaha ilaahi subxaana wa tacaala ridihiisa iyo jannadiisa ay ku mudanayaan. waa la wada geeriyoon doonaa halkan baana la wada mari doonaa waa la kala horreyna cidi hadhi mayso. ilaahi subxaana wa tacaala innagana iyo sheekha iyo ahalkiisana gadaashii allah inama fidneeyo xaq iyo iimaankana allah inagu sugo dhammaanteen. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.